waddada guushu waa dheer tahay, sidoo kale waa qodxo iyo bahalo badan tahay. caqabaduhu ma yara. ka gudubka webi ay ka buuxaan ixaasyaal dilaayaal ah waxay ku xiran tahay dadaalkaaga, dhiiranaantaada iyo hiigsiga fog ee kuu muuqda. sheekadani waa riyadii u rumowday muhaajirad ku dhalatay waddan colaado la saaxiib ah, wakhti badan ku soo qaadatay xeryo qaxooti, kadibna guusheedu qabsatay ciwaanada jaraa'id walba oo ka soo baxa dunida, laguna qoray magaceeda luuqad walba oo caalamka looga hadlo. Ilhaan Cumar waxay tusaale nool u tahay carruur walba oo colaad qax iyo qaxooti ku soo koray. waa xidigad ay hiigsadaan malaayiin Afrikaan iyo muslimiinba ah. magacaygu waa Shucayb Maxamed, channelka aad iga daawanaysidna waa Shucayb Todobaal. dhiirigelintu waa dhankaaga. Ilhaan Nuur Cumar waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho dabayaaqadii 1981. dhalashada Ilhaan kadib, durbaba waxa ay wajahday caqabadeedii ugu horeysay ee nolosha kadib markii ay weyday hooyadeed oo durba geeriyootay. Ilhaan aabaheed Nuur Cumar waxa uu ahaa tababare macallin, sidaa darteed Ilhaan waxa soo koriyay ayeeydii. kadib markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya 1991, waxay qoyska Ilhaan Cumar u qaxeen dalka Kenya, halkaas oo qaxooti ku ahayd muddo 4 sano ah. waxayna 4 sano kadib dib u dejin ka heleen dalka Mareykanka oo ay iminka guulo weyn oo dhanka siyaasadda ah ka gaadhay. Support this amendment on behalf of the thousands of victims who experience trauma. This is the key part of their recovery process and a crucial response into the immediate aftermath. Thank you. Ilhaan durbaba waxa ay baratay luqadii, kadibna waxa ay ku biirtay iskuulkii sare ee loo yaqaanay Edison High School. waxaana macallimiinta iyo ardaydii ay waxbarasho wadaagga ahaayeen ku sheegeen inay ahayd qof aad u firfircoon kuna fiican isdhexgalka bulshada. markii ay ka qalin jabisay iskuulka sare ayay Ilhaan Cumar durbadiiba ku biirtay jaamacadda North Dakota, waxa ayna ka baratay kulliyadda cilmiga siyaasadda iyadoo ka qalin jabisay sanadkii 2011. I rise today to mark the 26th day of what is now the longest running government shutdown in history. A shutdown which is nothing more than a manufactured crisis designed to distract us from shaqadii ugu horeysay oo Ilhaan Cumar qabato ayaa lagu sheegay inay ahayd macallimad jaamacadda Minnesota ka dhigta arrimaha bulshada iyo horumarinta. kadib waxa ay maamulo ka noqotay ololihii doorashada sanadkii 2012 ee Senator Kerry. waxay halkaas kaga soo biirtay arrimaha siyaasadda oo ay aad ugu dhunduloshay. sanadkii 2016 waxa uu suuro gashay inay ku soo biirto baarlamaanka dalkaasi Mareykanka kadib markii guul weyn oo filan waa ahayd ay ka gaadhay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Nuur. ikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay shantii bisha Juun sanadkii 2018 ayay Ilhaan iska diiwaan gelisay musharaxiinta u tartamaya kursiga Koongareeska ee degmada 5aad ee Minnesota. dad badan oo ka faalowda siyaasadda dalkaasi Mareykanka ayaa u arkayay Ilhaan inay isdaalinayso oo aysan waxba ka keeni doonin doorashadaasi, balse waxay amakaag iyo laba filaan ku noqotay markay si aqlibeed leh ugu soo baxday doorashada kursiga Koongareeska, kaasoo ay keensatay natiijo dhan 78.2%. haddaba dadaalku waa furaha guusha,
ku dadaal mar walba inaad rumayso riyadaada.